السلام عليكم. maanta waxaan ka hadlaynaa mataanka dhulka. Dariskeenna aadka noogu eg. Meere aan aad u naqaan habeen kastana aragno. Dadka reer miyiga si weyn ayay u yaqaanaan. Galabtii qoraxda markay dhacdo si fiican loo arki karaa. Waxaa loo yaqaanaa waxaraxir. Laakiin xilliyada uu aroortii soo baxo fajarka ka hor waxaa loo yaqaanaa bakaal. Qofkii meel oo kala hayo wuxuu habeenkii dadka u sheegaa in uu kalihi doono bakaalka markuu soo baxo. Xilliyada qaar waxaa loo yaqaanaa xiddiga galabta iyo subaxda. Waa meere mararka qaar la arki karo maalinta qoraxda soo jeedo. Soomaalidu waxaraxir ayay u yaqaanaan sababtoo ah maqribka kadib xilliga waxaraha la soo xiray habeenku galo ayaa si fiican loo arki karaa. carabtuna waxay u yaqaanaan kowkab الزهرة caalamka kalena Venus. quruxdiisa darteed oraha ayaa laga sameeyay caalami ah looguna magac daray buugaag la qoray. orahdaas oo ah dumarku waxay ka yimaadeen waxaraxirka ragguna mariikha. الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. men are from Mars women are from Venus. meerahan cajiibka badan ee ummadaha mashquuliyay aan wax ka ogaana maanta. waxaraxirka waa meeraha ugu dhow dhulka dhanka qoraxda markii la aado. waxaa loogu yeeraa mataanka dhulka, walaalka dhulka, sababtoo ah aad ayay isugu og yihiin dhanka dusha, qaab samaysanka, inkastoo dhulka wax yar ka weyn yahay xajmi ahaan. waxaraxirka sida dhulka oo kale ayuu leeyahay buuro waaweyn, dhul bannaanna, togag, laakiin ay socdaan dab iyo holac. heerkulka magaca ugu habboon ee lagu yeeri karo waxaraxirka waa foorno, jaxiimo. ereygaad rabta adeegso aad ku cabiraysa waxaad u kulul. dhulkeenna meesha ugu kulul heerkulkeedu wuxuu gaaray 71 digrii, waana saxaraha luud ee waddanka Iiraan. halka heerkulka waxaraxirku yahay 460 digrii iyo wax ka sii badan, taasoo nolosha ka dhigtay mid mustaxiila. ruushka ayaa ku dejiyey deex gacmeed, laakiin kulaylka dartiis dhowr ilbiriqsi ayuu ku milmay. haddii aad istaagto dusha meerahan waxaad arki togag daba, buuro holcaayo, volkaano ilaa intii ishaad u qabato. waxaa laga yaabaa inaad isweydiisa meeraha dusa, cutaarid, mercury ayaa qoraxda uga dhow waxaraxirka, maxaa keenay inuu ka kululaado? waa su'aal fiican. waxaraxirku wuxuu leeyahay dabool atmosfeer adag oo celinaya kulaylka qoraxda, taasoo ka dhigan in kulaylka qoraxda ka imaada ee soo gala meeraha uusan ka bixi karin, maadaama khilaafka kore ama daboolka meeruhu yahay mid aad u adag oo celinayo kulaylka. waa waxa lagu magacaabo global warming, al-ixtibaas alxaraari, caburitaanka kulaylka. haddaan waxyar dhulka dib ugu soo laabana waxaad in badan maqashaan baryahan in atmosfeerka dhulka khatar ku jiro, sababna u yihiin qiiqa warshadaha, gawaarida, falalka bini'aadamka kala duwan, taasoo keeni karta in daboolka kore ee dhulku adkaado oo qiiqaas ka buuxsamo, kadibna dhacdo in kulaylka dhulka ku xirmo oo meelu ka baxo waayo, taasoo keeni karto in heerkulku aad u kaco. baryahan waxaa soo badanaya dabka ka kacaya kaymo meelo badan ku yaalo caalamka ka mid ah. waddamo aanu kulayl laga aqoonin ayaa xilliyadii u dambeeyay ka cabanaya kulaylka sii kacayo. haddii aan dib ugu soo laabano mataankeenna waxaraxir, dhulka wuxuu ka fog yahay 150 milyan oo kiiloomitir, halka qoraxdana uu jiro 108 milyan oo kiiloomitir. arrinka la yaabka leh ee waxaraxirka ka soocaya dhammaan meerayaasha bahda qoraxda waa inuu wareegiisu yahay dhinacay saacaddu u wareegto, halka kuwa kale sida dhulkeenna u wareegaan cagsiga wareegga saacadda, taasoo keentay in qoraxda ay ka soo baxdo galbeedka una dhacdo bariga waxaraxirka. qiyaasaad cilmiyeed aanan si 100% loo hubin ayaa leh waxaa macquul ahayd in 3 bilyan oo sano ka hor waxaraxirku lahaa jawi la mid ah kan dhulka, bada waaweyn, roob iyo cimilo lagu noolaan karana ka jirtay, laakiin balaayiin sano kadib isu beddelay foorno birtu ku milanto. baaritaanada meerahan waxaraxir lama dhihi karo xadaarad hebel ama qof hebel ayaa soo helay. bani'aadamka maalintii uu dhulka yimaado ilaa hadda ayuu yaqaanaa meerahan. keliya inaad cirka fiiriso maqribkii dhanka qoraxda u dhacda ayaa kugu filan si aad u aragto meerahan waxaraxir. laakiin halkan aan ku sheegna baaritaanada iyo tafaasiisha gaarka ee laga bixiyey meerahan taariikh ahaan. xilliyadii muslimiintii hore gaar ahaan 1032 miilaadi, ibnu siina ayaa baaritaan uu sameeyey gaaray inuu waxaraxirku qoraxda uga dhow yahay dhulka, halka ibnu shaatir qarnigii 12 diiwaan geliyey 2 dhibcood oo madow oo ku aadan qoraxda, taasoo qutbuddin shiiraazi markii dambe ku sheegay inay yihiin labada meere waxaraxir iyo mercury oo ku aadan hormarayo qoraxda. laakiin cidii ugu horreysay ee teleskoobku aragto wuxuu ahaa Galileo qarnigii 17aad.
isagoo diiwaan geliyey in waxaara xirku maro marxalada u eg midda uu mara dayaxa dhulka raacsan 1761 caalim ruusha lagu magacaaba Mikhail Lomonosov ayaa sheegay in waxaara xirku leeyahay xayndaab dabool oo ku gadaaman. Johann Schröter oo Jarmal ah ayaa ka mid ahaa culimadii wax ka ogaaday daboolka waxaara xirka. laakiin baaritaanada sida weyn wax looga ogaaday waxay bilowdeen 20 sano u horeysay qarnigii aan soo dhaafnay 20aad. waxaa bilowday baaritaan iyadoo la adeegsanaya raadarada iyo shucaaca ka hooseeya casaanka si fiican si wax looga ogaado waxaara xirka. bilowgii 60aadkii waxaa bilowday tartan dhanka hawada ah iyo in dayax gacmeedyada lagu dejiyo meerayaasha. 21 Febraayo 1961 midowgii Sofiyeetka ayaa diray dayax gacmeedka Venera hal wuxuuna ahaa barnaamij Sofiyeetku wax uga ogaanayeen waxaara xirka. laakiin 7 maalin kadib markii la diray ayaa xiriirkiisa la waayay ilaa hadda meel uu carabi jaaniga lama yaqaano Venera hal. markii uu wardambeysay 2 milyan oo kiiloomitir ayuu u jiray dhulka. kadib Venera hal Sofiyeetku waxay direen Venera 2 oo xaqiijiyay guul weyn wuxuuna ku guuleystay kadib 109 maalin oo wadada ku sii jiray in uu galo madaarka waxaara xirka. qalabka ku xiran ayaa diiwaan geliyay macluumaad kala duwan oo ugu muhiimsan tahay diiwaangelinta heerkulka meeraha oo gaartay 425 digri taasoo soo afjartay rajadii ahayd in lagu noolaan karo waxaara xirka. Sofiyeetka tijaabada iyo diritaanka way sii wadeen ilaa ay gaareen Venera 16 1983 dhowr mar ay ku guuleysteen inay ku dagaan dusha meeraha waxaara xir. laakiin aaladaha xirbixinta daqiiqada yar ayay dhuxul ku noqdeen. ma jirto aalad ilaa hadda u adkaysatay 5 daqiiqo wax gaarayo. kulaylka meeraha ayaa sidii biyo u milay. wakaaladda Mareykanka ee hawada sare NASA ayaa 1989 ka dirtay Magellan hawl ah in raadaar lagu sawiro dhulka iyo badka meeraha. dayax gacmeedkaas isagoo adeegsanaya ashcada raadaarka ayuu qaaday sawirro tayo leh wuxuuna dejiyay khariidado kala duwan. juqraafi ahaan qaabka dhulkiisa waxaara xirka 80% dhulkiisa waa bannaano fidsan iyo togag fulkaano leh. 20 ka soo hortay waa 2 qaaradood oo mid dhacdo waqooyiga meeraha halka tan kalena dhacdo inta ka hooseysa dhulbaraha meeraha. qaaradda waqooyi waxaa lagu magacaabaa dhulka Cashtar iyadoo loo nisbeeyay aalihadii jacaylka ee baabiliyiinta ee dhulka labada webi. Cashtar qaaradda dhulka Cashtar ee dhacda meeraha waxaara xirka waxay la eg tahay qaaradda Australia ee dhulkeenna. buurta ugu dheer waxay dhacdaa qaaradda dhulka Cashtar waxaana lagu magacaabaa buurta Maxwell 11 kiiloomitir ay kor u taagan tahay. qaaradda koonfureed ee waxaara xirka waxaa lagu magacaabaa buuraleyda Aphrodite oo ah ilaahay jacaylka Giriigii hore. meera aanan dayax lahayn inkastoo meeraha waxaara xirku dhulka u egyahay laguna magacaabo mataanka dhulka haddana ma lahan wax dayaxa. arrimo badan ayaa la isla dhex maraya sababta uusan dayax u lahayn sida meerayaasha kale markii laga reebo Cutaarid. marka koobaad waxaa loo sababeynayaa in Cutaarid uu ahaa dayaxa meerahan laakiin uu ka baxay wadadii uu ku wareegan jiray taasoo keentay inuu ka fogaado malaayiin kiiloomitir. sababta kale waxaa la leeyahay waxaara xirku dayax wuu lahaa balaayiin sano ka hor laakiin meeruhu uu la kulmay inuu meero kale ku dhaco taasoo gadisay dhanka u wareegto ee ka duwan dhammaan meerayaasha kale. arrinkaas oo markii dambe dhibaato ku keenay xagga wareegga dayaxii uu lahaa kadibna uu ku dul dhacay meeraha uuna ka mid noqday. inkastoo qiyaasahaas yihiin daraasad la sameeyey oo cilmi ku dhisan haddana ma ahan wax la hubo. ilaahay awooddiisa cid ka hadli karta ma lahan iyo waxa uu sameeyo. laakiin waxaan ugula imtixaamaya annaga basharhaan inaan isweydiinno oon ku fikirno awoodda ilaahay. adigan hadda daawanaya muuqaalkan isku day inaad soo hesho sababta uuna meerahan u lahayn wax dayaxa. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar kuna soo biir kanaalka haddii aadan weli ku soo biirin lana soco muuqaaladii u dambeeyey.